masuliyinta xisbiga wadani ee gobolka togdheer oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta dhexe xisbiga wadani ayaa tagero u muujiyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray godomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro sidoo kale masuliyinta ayaa fariin adag u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kuna hanjabay in gobolka togdheer ay ka qaban doonaan mudaharaad salmiya oo lagaga soo horjeedo xukuumadda waxaana kamid ah hadaladoodii maxamed cabdiraxmaan ciro inaynu tagero buuxdo magaranaysa u muujino oo hadalka ma garanaysa uu ku dhaliilayo xisbiga wadani iyo maamul xumada dhacday oo ma garanaysa inaynu hadalka taageerno uu iftiimiyay shacabka inay dhacday khiyaamo qaran waxa leeyahay xukuumadda kulmiye kala horeysay iyo tan kala dambeysayba horta shacabka in badan baanu ka qayloon lahayn ka yaacay waa ninkii cawlo ciidin maaye ka yaacay in badan baanu lahayn wixii aynu galabsanay nagu dhacay imkana aynu isbadbaadino ninka la yiraahdo maxamuud xaashi oo xalay toole si kulul uga hadlaya arrinka maxaa dhahday dhacay maxamuud xaashi waa ragii beentan aynu maanta la isku haysto waa ragii soo saxeexay maxamuud xaashi waa maxaa dhahday waxa la yiri marbu ru sheegayo markuu runta sheegay waxa la yiri markuu gurigiisa garaacay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo ku taageerayno khiyaamadii dhacday oo ka hadlay iyo dabqashadii dalka uu damqanayay iyo lixjecladii uu dalka uu ka qabay dhammaan gobolada iyo dalka waxaan soo jeedinayaa in mudaharaad cad laga hortago xukuumaddan dhiig miiratada ee inagu soo noqotay ee ilaahayna inay kaxay weynanayso waxaanu dilaanay la hadla imaaraadka arrinta shacabku wuu idinka fadhiyaa wuu idin sugayaa meelaan ahayn iyo meelaan dad ahayn dadka ma jiran habaabin waa wasiirada ninka la yiraahdo xukusi iyo ninka la yiraahdo cadaani iyo in xaashi nimankaas anigu waxaan qabaa in islaam berbera ay ka hadashay nimankaas ay dhaantamaan wuxuu ku jira god buu ku dhacay maanta godka waa la cadeeyay Soomaaliland la waxa weeyaan in badan ayuu xisbiga wadani iyo dadku wixii aragtida way arkaya waxa ay xisbiga kulmiye cuneen masiirkii ummadda soo dhalan doona waxa ay cuneen kaayagii waxa wadanka u reebeen ma jiro waxa aan taageersanahay go'aankii godomiyaha ummadan masiirkeedii iyo Soomaaliland wixii loola soo noqday ee loo aas-aasay ee loola soo noqday iyo gobonimadeennii maanta waxay ku jirtaa halis iyo qirinqir haddii aan shacabku badbaadin ina qaranka u soo jeesataan war caburin hadii aan doonayna in la caburiyo dadka qofkii hadlaba nalka hore damika dambana damika gudaha daaqada ha furin hay igu soo degin adna ha istilin mir sigaar iyo 9 shilinkan ba faqashti laga yeelila taageerno madaxweynaha yaga cabdiraxmaan oo sheegay daylaydin mucaayana wuxuu idin sheegay halka ka rideen dalka gaarsanay hadalkii gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi shucuurtii ka muujiyay khiyaamadii qaran ay galaan dawladii kulmiye kala dambeeyay marka hore gudoomiyaha maxamed cabdilaahi ciro oo maalin dhawata hadlay oo ka hadlay khiyaamo qaran khiyaamada qaran waa dhab weeyaan waa dadkoo dhan baa wada arkay Soomaaliland oo dhan baa wada arkay muddo badan bay socotay inta waa la arkay inta waa la qeylay shacabku qeylay arkayay sakaara haasta taasay maanta taaganta waxa dhacday ilaahay baa idin ka shafay Allah idin ka shafay oo dalkii iyo ummadii aboobaysay ayuu ilaahay idin ku kashafay halka saaka waxaan taageero uga muujinaynaa miisaan leh gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Maxamed Cabdilaahi Ciro go'aankii geesinimada lahaa ee uu ka qaatay ka gilgishay markii ay soo baxday fadeexadii uu iftiimiyay wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta sida runtii waa dareemi karteen dadweynaha waxaan leeyahay cabdiraxmaan markii la yiri waa laga helay kursigii muu cadhoonin cadhana wajigiisa kabay muuqan laakiin markii khiyaamo qaran soo baxday wuu cadhooday halkaas ka fahmaysaan cabdiraxmaan wuxuu u cadhooday ma aha dantiisa waa danta ummadda weeye muusana hal baan leeyahay muusow madaxweynaha qaranka iminka adiga nusqaanta timina adiga ku dulooganaysaa heshiiska Soomaaliya aad u dusha ka saaran yahay waxaad iskaga difaacaysaa adiga yaqaana
haddaad odhan doonto anigu af carabiga maan garanayn carabi bay ku wada hadlayeen Saacad Cali Shire iyo Baashaha la weydiiyo waad saa kaga jawaabi doonto haddaad iyaga xilka ka qaadi doontaad odhan doonto iyaga khiyaamo qaran sameeyey haddaad adigu qiran doonto waa lagaaga fadhiyaa jawaabtaad odhan doonto muuse si toos u jawaabi waayo oo isagu istifaaci waayo mudaharaad silmi baan ku baaqaynaa insha Allah Axmed Nuur Samrawi wakiil wareedka telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco